السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراديو تيم ديرمان waxaan daawanayna halfweight champion in the world waa ninkan waxa la yiraahdaa Bufa Kubrat ayaa la yiraahdaa wuxuu ka soo jeedaa dalka Bulgaria 28 ciyaarood buu ciyaaray 14 kamid ah naka uu dhiibay wuxuu la ciyaarayaa ninkii halfweight champion ka hayay Antonio Joshua number 1 ka isaga haystay laakiin markii laga badiyay Tyson Fury hadda number 1 ka ah oo maadaama badin hal mar laga badiyay Tyson Fury baa imika number 1 ah waa ciyaar adag ninkan Kubrat in badan buu sugayay inuu nin champion ah u dhaco dadka Hindisa ee ka faalooda waxay leeyihiin 80% chance badan buu haystaa ciyaartan wada daawana hadda waa bilaabantay wareegii horeeyay ninkaas Afrikaan baa gacanta kaga qoran Afrikaanka lagama waayo waxyaabo taatuuriyo Afriku dhinaca ku sita ninkan waa muslim baan muslimkaaska qacdi horeysay waa lagu garaacaya waa qacdi horeysay wallahi da'da ayuu ku dilayaa ninkan waa nin khabiir ah oo aad u miisaan badan laakiin 39 ayuu jiraa ninkan waxa weeyaan 31 jir Antonio Joshua waa yahay wali laakiin ninkan waa weyn oo ka lagu wadaa faalladii Tyson Fury iyo Dylan Height iyo David Haye waa ku deysay maanta nimankii laha chance buu leeyahay wax badan rag badan buu qoosiyay ninkan waa naad u fiican madow Nigerianka asalkiisu Nigerian buu ka soo jeedaa waa British laakiin waa iska Nigerian ka wallahi waa koor tagaba waa tagaya iska tagaya soo kacay tan ma dhimato mee naftu dul dhigaya ilaa laga qaado diidi maayo la naftu dul dhigaya nafta hasta ka soo ciyaarta wali ciyaarta waa socotaa fako lagu hay garaacaya wallahi foodo qaadilay يقطع متشوكسن بولفا توا متشوكسن كا ووريك اللي وانا ترى يلا وصو وعد كداي وصوكع والله وصوكع الكاستقبل كاستقبل والله وانا نك اوت كداي جاي بولا كداي برادا هيدو انت وريكستنا waa first waa ku dhacay waa dhacay waa qada laga qoos waa la cunay inta soo gabeenaya waa radio team dharayd champion the world waa ninkan waa adoogiisi waa agta hoosteeda maanta kaga dhigay عليك الله يا radio يا